Assalaamu calaykum daawade. Sida aan wada ogsoognahay ciyaaraha gaming-ka ee lagu shubto moobilada iyo kombiyuutaradu waxa ay dadka u geystaan dhibaatooyin aad u fara badan oo ay ka mid yihiin dayacaadda waqtigu. Balse sheekh caan ah oo Sacuudiyaan ah oo lagu magacaabo Xuseen bin Shaamiri ayaa isna inoo sheegaya siro fara badan oo aynaan ogeyn oo ay leeyihiin ciyaarahaasi, kuwaasoo ay ka mid yihiin sixirka iyo mind control-ka ama maskax maamulka oo sidoo kale loo adeegsado ciyaarahaas. khudbadu jeediyay sheekhaasi oo aan idiin soo turjumnay ayaa waxa uu ku leeyahay: wa inni uxadhirukum min hadha almaqam min 5 al'ab in kanat fi buyutikum حطموها أخرجوها أزيلوها فروا منها كفراركم من الأسد. waxa aan idinka digayaa maqaamkan aan taaganahay maanta 5 ciyaarood. haddii mid ka mid ah guryihiina taalo burburiya, iska saara, tirtira, uga carara sida libaaxa uga carartaan oo kale. waa 5 ciyaarood oo u geystay caalamka iyo muslimiintaba wax aanay gantaalada iyo hubku u geysan. xataa musalsalada iyo qanawaadka xilligan marka loo eego fasaadkeedu wuu ka daran yahay. waa 5 ciyaarood. ta koowaad waa ciyaarta xuutul asraq ama blue whale. waxa sameeyay Ruushka sanadkii 2015. tanina waa mid ka mid ah ciyaaraha elektarooniga ah kuwa ugu khatarsan ilaa imikana caalamka weli lagama mamnuucin. ciyaartani waxay ka kooban tahay 50 marxaladood oo muhiim u ah. marxaladaha u dambeeyana wuxuu gaadhayaa qofka ciyaaraya inuu naftiisa gooyo ama inuu isdilo. waxaana isku dilay ciyaartan sida tirakoob lagu sameeyay in ka badan 100 qof. innaga dhexdeennana way ka dhacday. ciyaarta xuutul asraq waa ciyaar sababaysa in qofka ciyaaraya uu naftiisa gooyo saamaynta ay ku yeelanaysa darteed. ciyaarta labaad waa ciyaarta Maryam. waxa ay ku faaftay wadamadan khaliijka, waxaanay argagax ku riday guryaha khaliijka. ciyaartan dhexdeeda waxaa lumaysa shakhsiyadda Maryam oo uu waayayaa ilmaha yari, kadibna waxaa lagu odhanayaa raadi oo soo hel Maryam. marxaladaheeduna sidaas ayay u soconayaan oo uu qofka ciyaarayaa u raadinayaa shakhsiyaddaas ilaa uu ka gaadhayo xaalad uu iyada u keli noqdo oo uu la coloobo ehelkiisa. oo saamaynta ciyaartani waa inaad ehelkaaga dishaa ama adiga lagu dilaa ama aad adigu isdishaa. kadibna naftiisa ayuu dilayaa si uu u ilaaliyo ehelkiisa. sidaas ayayna u dhaceen xaalado badan oo la diiwaangeliyey. ciyaarta saddexaad waa ciyaarta la yidhaahdo jinniyatu naar ama fire fairy. ciyaartanina waa mid aad u halis ah. waxa ay ku salaysan tahay ciyaartani dab. marxaladaheeduna waa erayo iyo kelmado sixir ah oo saamaynaya qofka dhalinyarada ah ee ciyaaraya ilaa ay maamusho caqligiisa. maxaa yeelay waxay sababaysaa inuu isaga laftigiisu si toos ah isugu bedelo jinniyadii dabka. ciyaartani waxa ay ku salaysan tahay dabka iyo gaasta iyo shoolada dabka. intaas kadibna waxaa qasab ah inuu ilmaha yari qolka isku soo xidho iyada oon cidna ogeyn, qolka oo madow, kadibna uu dab shido, kadibna uu naftiisa ku qabto. isla waqtigaasna waxa uu isku bedelayaa jinniga laftiisii ereyada sixirka ah ee uu ku dhawaaqayo dartood. sidaasina si xaqiiq ah ayay u dhacday. waxaanan idiin sheegayaa waxyaabo aad ku garan kartaan haddii ay agtiinna joogaan arday ama carruur. haddii aad aragto ilmaha oo gacantiisa ku qortay xuruuf, taasi waa shardiyada ciyaarta oo ah inuu ku gubo xarfaha qaar gacantiisa, inuu ku sawiro calaamado iyo sawiro isagoo isku gubaya. markaa ilmaha yari wuxuu ka baqanayaa inuu iska gubo gacantiisa oo waxa uu samaynayaa inuu isticmaalo qalin oo uu ku qoro. haddii aad taas aragtaanna waa tallaabooyinka jinniyatu naar. kadibna waxa ay u gudbaysaa marxalado qalbiga qofka xakamaynaya ilaa uu ku noolaado qofka ciyaaraya ciyaartan mid bilaa caqli ah oo aan waxba kala ogeyn. waana mid ka khatarsan labadii ciyaarood ee hore oo waa mid koobsanaysa dhibaatooyinkii kuwii hore lahaayeen oo dhan. ciyaarta afaraad waa ciyaarta loo yaqaano Fortnite.
iyana waa ciyaar marxalado dagaal ah ka kooban oo waxyaabo badan baraysa qofka ciyaaraya. shuruudaha lagu ciyaari kara ciyaartan waxaa ka mid ah in qofka da'diisu ahaato 6 sano ilaa 12 sano. ilmaha yari wuu ciyaarayaa oo wuxuu u fadhiyayaa 4 saacadood ilaa 3 saacadood, waxaanu la noolaanayaa dad aanu garanayn, waayo waxa ay ku xidhan tahay seerfarada oo waa mid online ah. yacni waxa uu la ciyaarayaa dad aanu garanayn meel ay joogaan iyo cid ay yihiin. waxa ay noqon karaan dad waddanka ka baxsan, waxa ay noqon karaan gudihiisa, waxa ay noqon karaan kuwo gaalo ah, waxa ay noqon karaan kuwo muslim ah. sidaa darteedna waxay badisay gaalnimadii, oo ciyaartaas darteed dumarkii waxay bilaabeen inay soo baxaan. inantii yarayd ayaa soo baxaysa iyada oo sheeganaysa inay diintii ka baxday. khamriga ayay cabbaysaa oo hilibka doofaarka ayay cunaysaa. maxaa sababay? waayo waa natiijooyinka ciyaartan darteed. ciyaartani ubadka waxay baraysaa jaaska iyo dheesha. waxay u samaysan tahay oo ay wadaa inay ka siita caqiidada, qofnimada iyo akhlaaqda. waxa ay ku bilaabantay sanadkii 2015. jaaska ama dheesha loo yaqaana Gangnam Style oo la macno ah fardafuulidda. kadib waxay isu beddeshay dheesha loo yaqaana jaaska dirxiga. kadib waxa ay usii horumartay jaas loo yaqaano dheesha korontada ama dheesha robadka. kadibna waxay isu beddeshay ciyaarta gabadha dhalinyarada ah ee dheelaysay sanadkii 1923. weliba ogow, ciyaarahan iyo jaaskan lama dheelayo ilaa iyo waxa la socda heesaha kuwa caabuda qorraxda iyo kuwa caabuda shaydaanka. ciyaarahaas teeda ugu dambaysay ee caanka ahna waa dheesha dunta, waana dheesha ugu dambaysay ee ay hadda ubadkeennu sameeyaan. waxaad arkaysaa ilmahaaga yar oo aan si isku miisaanayn u dhaqaajinayo lugaha iyo gacmaha oo aan istaagaynba. masaajidda dhexdeeda ayay ku dheeleen, madaarista dhexdeeda ayay ku dheeleen, meel kasta way ku dheeleen, waddooyinka dhexdooda ayay ku dheeleen. waa mid u saamaysay si aad iyo aad u weyn. ciyaarta u dambaysa waa midda loo yaqaano PUBG. ciyaartan waxaa loo diyaariyey si aad iyo aad u xeel dheer. waxaa ka qayb qaadanaya 100 ciyaaryahan oo dhammaantood wada online ah, waxayna ku xidhiidhsan yihiin seerfarada. bal sawirta idinku ardayda jaamacadda ayaa ciyaaraya isaga oo macallinkuna casharka sharaxaya. hablaha ardayda iyaga hadalkooda daa. PUBG waxa ay u taagan tahay goobta dagaalka ciyaaryahanada aan la garanayn. waxba ma ka garanaysid. waxa aan caqliga galayn ayaa ah in dhallinyaradeenii saacado dhan ay ku qaadanayaan ciyaaridda ciyaartaas ilaa iyo ay caqligoodii madoobaysay. waxa aad u dhawaaqaysaa ilmahaagii hebelow, mise waa sidii qof aan ku maqlaynba. waxa aad kala hadlaysaa waxyaabo fudud oo la garanayo, mise waa isagii oo ah sidii qof xuduudaba ka baxsan oo aan hawada ku jirin. haddaba ka dheereeya ciyaarahaas guryihiinna iyo ubadkiinnaba.